Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran channelkan. Waxaan idiin soo gudbinayaa qaybtii saddexaad qisadii la magac baxday jacaylkii foorida oo ah qiso jacayl oo dhab ah. Ka hor inta aanan u gudbin qaybta saddexaad ee sheekadani, aynu idiin dulmarno halkay inoo joogtay qaybtii labaad ee qisada. Qaybtii labaad ee qisadan la magac baxday jacaylkii foorida ayaa waxay maraysay Saadaq oo ku soo baraarugay magaca Canab oo jawaabtii degdeg ahayd ee uu ka bixiyey oo ahayd in ay Canab xanuunsan tahay kana codsatay inuu fasax u soo qaado. Haddaba qaybta saddexaad ee qisadan la magac baxday jacaylkii foorida waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Macallin Cabdiqaadir ayaa wuxuu aad ula yaabay sida degdegta ah uu Saadaq u dhiibay jawaabta ku aadanayd Canab oo uu la soo booday sidii qof hurdo ka soo baraarugay oo kale. Macallin Cabdiqaadir oo ahaa macallin kaftan badan oo bashaash ah ayaa wuxuu si kaftan ah ku yidhi, aniga iyo Saadaq oo keliya ayaa tabnay maqnaanshaha Canab. Wuxuuna sii raaciyey, Saadaq, Canab allaha inoo caafiyo, nooguna salaan haddii aad diris tihiin. Saadaq waxa uu noqday qof yaxyaxsan kadib markii ardaydii intoodii badneed ay indhaha ku soo wada taageen. Dhidid yaryar ayaa ku soo istaagay wejigiisa, waxayna ka gaartay maxaad u hadashay. Haddana wuxuu ka sii fikirayey maqnaanshaha Canab oo uusan isaga qudhiisu ka war haynin. Beenta uu u alifay oo uu u sheegay macallinkiisa. Wuxuu kaloo ka sii naxsanaa in ay Canab gadaal ka timaado oo ay dhici karto inay subaxaasi soo yara daahday oo uu halkaasi ku kashifmay. Nasiib darro, xilliga wuxuu ahaa xilli taleefannada gacanta lagu qaato ee mobile phoneska cid sidataba aysan jirin. Marka taleefannada landline-ka ah oo isagoo qudhiisu oo aysan cid weliba haysan oo laga heli karo oo keliya xafiisyada dowladda iyo guryaha madaxda oo qura. Waxay ahayd xilli aysan fududayn inaad si degdeg ah ku soo hesho qofkii aad u baahato oo ay qasab ahayd inaad lugta maasho oo aad hadba meel ka raadiso. Bal qiyaas qof aad u yara baahan tahay oo aad raadinayso muddo saacad ka sii badan, aadan weli helin, oo lagu leeyahay waxaad ka raadisaa halkaa iyo halkaa, oo markii aad goobtii tagtana lagu leeyahay hadduu naga tegey ama hadday naga tagtay. Saadaq waxaa haysta welwel ku aadan dhankaas, maxaa yeelay haddii uu jiri lahaa teelka gacanta, inta uu waca ayuu xaaladdeeda ka waraysan lahaa, wuxuuna u muujin lahaa dareenkiisa iyo sida uu uga fikiraya xilli walba. Wuxuuna u sheegi lahaa wixii dhex maray isaga iyo macallinka, iyo sida uu beenta u sheegay macallinka fasaxan ugu qaaday iyada oo aan la socodsiinin ama uusanba ka war haynin xaaladdeeda. Si aysan hadalladooda isu khilaafin ayuu teelka gacanta kala xiriiri lahaa. Balse maxaa dhici kara markay iskoolka timaado? Maalintaas Saadaq waxay u ahayd maalin mugdi ah, wax cashar ahna uu la socdayna ma aysan jirin. Waxaa laga dareemayay caajis aan caadi ahayn. Waxaa la dheeraaday xusooyinkii. Waxay ka taagnayd marle may kaa dhammaatay xusooyinkan aad xaafadda iska aadide. Subaxii xigay ayaa Saadaq oo aaminsanaa inay Canab imaanayso ayaa wuxuu fadhiyey tarjiin ku yeelay bannaanka kore ee iskuulka. wuxuuna indhaha la raaciyey gabdhaha oo xilliga iskuulka ku soo qulqulayay. Gabdhihii oo qaar badani is-shabahaan maadaama ay wada xiran yihiin yuniformkii isku midka ahaa ayaa Saadaq dhowr jeer wadnaha garaacmayey kadib markii uu indhaha ku dhuftay gabdha Canab ula ekaaday. Alla jacaylku xanuun badana kolka ay xaaladuhu halkaas marayaan. Ma garan foomka iskuulka xilligaas lagu dhigan jiray. Ardayda dugsiga sare, wiilal iyo gabdhaba waxay xiran jireen saraawiil kaaki ah iyo shaarar midab caddaan ah. Gabdhaha badankooduna madaxa wuu u furnaa, qaarna timaha waxay u jaran jireen hab xilligaas lagu kacsanaa ama lagu daadsanaa oo loo yiqiinay Elvis, qaarna Leon Rich, qaarna nooca kale ee timaha loo jaran jiray oo loo yiqiinay Markis. Saadaq subaxaasi siduu bannaanka u fadhiyey wuu daalay. Talow Canab ma imaan doontaa subaxaas, mise waxay Saadaq u noqon doontaa maalin kale oo murugo ah? Saadaq sidii uu u fadhiyey ganjeelka kore ee iskuulka ee uu gabadhii soo muuqataba ugu malaynaya Canab, kama dambayn waxaa dhawaaqay dawankii ama kambaleelkii ay ardaydu safka ku galayeen. Isaga oo u muuqda inuu quustay ayuu ka soo galay ganjeelkii. Waxa uu galay safkii ardayda ayaa taagnaa
ardayda ayaa saf aad u qurux badan ku jiray. Muuqaalka ardayda ayaa markaad kor ka daawato waxaa kuu muuqanayay muuqaal aad u qurux badan oo runtii indhahaada soo jiidanaya. Arday kala heer ah oo ku kala labisan yunifoom kala duwan. Ardayda dugsiga hoose dhanka gabdhaha oo ku labisan goonooyin buluug ah iyo shaarar caddaan ah, halka wiilashana ay xiran yihiin saraawiil dabagaab oo buluug ah iyo shaarar caddaan ah. Dugsiga dhexe wiilal iyo gabdho ay xiran yihiin saraawiil kaaki ah iyo shaarar midabka huruudka ama jaallaha leh, halka dugsiga sarena wiilal iyo gabdhaba ay ku labisan yihiin saraawiil kaaki ah iyo shaarar midabka caddaanka ah leh. Saadiq safkii buu dhinac ka soo galay, balse maskaxdu ma aysan u fadhiyin. Waxa keliya uu ku mashquulsanaa ayaa waxay ahayd waxa Canab ku dhacay oo maanta oo kula laba ah ay uga maqan tahay iskuulka. Wuxuu maskaxeed keligiis ah, talow maxaa ku dhacay Canab? Miyay xanuunsan tahay? Ma iskoolkii bay ka wada baxday? Mareerkeedii baa dhibaato la soo darastay? Maxay fasax u qaadan weysay ama loogu qaadi waayay? Su'aalaha iyo kuwo kaleoo kasii xanuun badan buu isweydiinayay Saadiq. Xisadii koowaad markii ay bilaabatay oo uu macallinkii taariikhduna casharkii sharaxayo ayaa waxaa farta taagtay Saadiq oo si uun looga dareemi karo murugo xad dhaaf ah. Macallin Shaafici ayaa ku yidhi istaag. Saadiq wuu istaagay. Macallinkii ayaa ku yidhi su'aal miyaad qabtaa? Saadiq ayaa cod aad u gaaban ku yidhi macallin maya, su'aal ma qabo ee waan xanuunsanayaa, fasax ayaan rabay. Macallinkii ayaa ku yidhi soo qaada buugaagtaada. Wuxuu u tegay macallinkii, cod hoose bay ku wada hadleen. Fasax ayaa loogu qoray buuggii rajistarka ahaa. Macallinkii oo dhahayo Allah ku caafiyo iyo Saadiq oo sii luudaya ayaa fasalka ka sii baxay. Runtii Saadiq wuu iska socdaa, xaalkiisu ma fiicna. Wuxuu si cagajiid ah u soo aaday dhanka xaafadiisa, xitaa ma uusan garan karin qofka waddada ugu hor imaanaya iyo qof kale. Wuxuu soo gaaray gurigoodii, waxaana aad ula yaabay hooyadii markii ay aragtay Saadiq oo xilli hore iskoolka ka soo tegay. Waxa uu u sheegay inuu xanuunsan yahay. Aad bay uga naxday hooyo Faadumo xanuunka wiilkeeda, balse ma oga in waxani ay xanuun ka weyn yihiin oo uu yahay jacayl ugub ah. Alla jacaylku xanuun badana. Halkaa waxaa inoogu eg qaybtii saddexaad ee qisadii la magac baxday Jacaylkii Foorida. Qisadan oo ah qiso jacayl oo dhab ah waa qiso aad u cajiib ah oo taabanaysa qaybaha kala duwan ee nolosha sida farxadda, murugta, jacaylka, waxla'aanta, daacadnimada, xasidnimada iyo qaybo kale oo kasii badan. Qisadan waxaa soo saaray idiinla soo jeedinaya anigoo ah Al-Ustaad Axmed Diiri Afrax. Si aysan kuu dhaafin qaybaha dambe ee qisada oo aad u xiiso badan, fadlan rukumo ama subscribe leh YouTube channelkan Axmed Diiri Afrax. Channelkan ayaa waxaad kala socon kartaa mar weliba qisooyin jacayl oo taxane ah, murti, madadaalo, xigmado iyo waxyaabo badan oo aad ka kororsan doonto khibrad iyo waayo aragnimo insha Allah. Fadlan subscribe leh haddii aad nagu cusub tahay. Channelkan waa Axmed Diiri Afrax oo idin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad dunida ka joogtaan.